kusoo dhawow barnaamijkeennii Bunyo Book caawa keligay miihi waxaa barbarkayga fadhiya oon aad ugu faraxsanahay ustaadkaygii sheekhaygii qoraagaygii dhiirigeliyahaygii Cumar Al-Faaruq Cumar Maxamed ustaad kusoo dhawow barnaamijka Bunyo Book runtii asxaabtu in badan bay ku raadinaysaa laakiin si caawa intaad soo duushay aad Bunyo Book soo dhex fadhiistay kusoo dhawow mahadsanid aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ustaad Cabdi Shakuur Xarbi adigan sidoo kale waxaa tahay qof barnaamijyadiis aan daawano aan ku aragno baraha bulshada waxaan aad iyo aad yani kugu hambalyeynaya barnaamijkaaga Bunyo Book sababtoo ah dhiirigelintu waxay ka bilaabataa aqoonta qofna waxa ugu wanaagsan inuu aqoontii cilmiga dadka yani ku dhiirigeliya wadada aad haysid waa wadada ugu fiican qof uu qaado waana la socotaa aayad Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu horeysay iqra bismi rabbika alladhi khalaq yani sabab loo dhahay maxay tahay aqrinta waa hogaaminta iyo mataqaana miftaaxa adduunka waay aad iyo aad baan ugu faraxsan barnaamijkaaga Bunyo Book adiga iyo asxaabtaada dhammaan yani sida aad u daadihinaysid barnaamijka u wadid waa hambalyo waxaad ka mid tahay doorka ummadda waxaan dhihi karaa waxay dadka bulshada ay u baahneed oo loo baahan yahay dadku wacyigeliyaan masha Allah ayaa tahay hore ka sii wad waad gaari doontaa insha Allah taala inta in ka badan insha Allah waxaa tahay qoraaga buugga jacayl aan dhammaad lahayn aad iyo aad runtii dee anigu hore jacayl waxba ugama aragin waxba kaba garanayo laakiin waxaan rajeyn doonaa buuggan inuu noqon doono buuggii koowaad ee wadadii jacaylka ee guridi doono insha Allah waxaan doonayaa bal asxaabta intaanan gorfeynta guud inaan u guda gelin bal si guud inaad nooga waranto jacayl aan dhammaad lahayn wuxuu ku saabsan yahay ustaadii waxaan joognaa waxay tahay Somaliland oo ka soo jeeda cilmi boodhar iyo hodan inkastoo buuggii uusan kaliya ka sheekeynin jacayl bal qofka uu barayo yani uu tusayo qofka qalbigiisa uu hadiyin lahaa jacaylka waxaan la noolnahay maalin walba qalbigeena yani wax buu arkayaa wax buu caashaqayaa laakiinse buuggan ma ahan oo kaliya gaba iyo qoraal inuu ku taxaya bal wuxuu kugu jiheenayaa waxay tahay qof kugu haboon wuxuu ku barayaa waxay tahay saa u xulan lahayd lamaanaha kugu haboon wuxuu ka fogeynayaa waxay tahay uu ka dheereenayaa beenalaha shukaansiina ka fogaatay wuxuu ku tusayaa qofka adigoo la dhaqmay shakhsiyadiis dhabta qaab cilmi psychology ay qaab dhaqan diin ay wixii la mid ah buuggiisaas oo dad isguursadeen wuxuu u yahay jiheeye kale wuxuu barayaa waxay sida bangigaas jacaylka sawjeed loo fiirisa taxta Soomaan sida loofkaas ay u ilaashan lahaayeen loof gaashaaman oo qurux badan yani jacayl joogta ay ugu noolaan lahaayeen buuggan wuxuu ku leeyahay waxay tahay jacayl waxa u baahan tahay jacaylka tabcan saala socoto ustaad waxa anaga naqoxi adduunkan qooxiyay sidaas awgeeda buuggan wuxuu ku barayaa isha ku furaya waxay tahay wuxuu ku leeyahay albaabka jacaylka ku fura wuxuu ku tusayaa saa u guran lahayd miraha jacaylka marka guratidna saa u cundi lahayd ku baraadan wada goob masha Allah taala adiya jacaylkii badda xaggan ku dhan yahay adiya waa jacaylkii buugga baan oran karnaa istaadide inta kala bal waxaan filayaa asxaabta inay wada buuggan dhex qaadi doonaan marka ani waxaan ka codsanayaa waxay tahay adiga asxaabta barnaamijka Bunyo Book buuggan hadda meeshan yaal adigan ku hadiyin doona insha Allah taala Cabdi Shakuur Xarbi waxaan ka codsanayaa waxay tahay in buuggan markaad akhrisid asxaabtaada aan gaari karin buugga asxaabta yani gaarayna wixii aad ka fahantay isla wadaagtaan gorfeena ku sameeysid insha Allah taala aad Ilaahay ku barkeeyo jiraan dhamaad lahayn waxaan rajayn doonaa insha Allah taala adiga dhammaan asxaabta singalka ah dhamaan dhigka masha Allah taala yani inuu u naqdo albaabki ay iskaga bedelin lahaayeen qof dhab ay u heli lahaayeen dhammaan asxaabta xaasiyaasha aan saasoo kale ay maxal dhigi jiray noloshooda ay uga weecan lahayd dib iyo dhibaato jacayl joogto ay uga noolaan lahaayeen haddaan ku saxiixay ustaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barkeeyo Cabdi Shakuur Xarbi dhiirigeliye wanaagsan masha Allah taala adiga iyo asxaabtaadaba Faaruq Cabdi Shakuur Xarbi masha Allah taala ما شاء الله تعالى هرقيسة Somaliland ما شاء الله تعالى تاريخ ذو تهيمانتا سدون إبر أفر لو كن لواتني كو ما شاء الله تعالى أدبن أقول فحسنا أستاذ إلى سبحانه وتعالى كبر كيو بوجي جوان دماد لهن يبدون شرف على هذا أصحاب تاذن وسلام يا إلى خير السيو أنا وحالي أصحاب بوني بوك لما داوانيسا buugayga idinka Xarbi oo dhiirigeliyin dhiirigeliye dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa idin hadiyay qiimi sharaf ah leedin waa idin jecel ma kasta joogtaan Ilaahay sharaf iyo karaamo korkaaga ha dhigo dhamaantiin amiin barnaamijkeennii Bunyo Book isla toddobaadkan jacayl aan dhammaad lahayn iyo buuggan sidaa jacayl u dhex qaadno
aniga iyo asxaabta ila midka aan waxba jacaylka ka garanayn waxaan filayaa in buuggaasi noo noqdo ay bafur uuna jiheeyo oo waxaan ku wari qulubteeda loofka yara cas dhammaanteen ay ku gabayso aad baad u mahadsantihiin ustaadi ilaahay ku shafaa ma santaysa ilaahay ku shafaa